Asalaamu calaykum. Maanta muuqaalkan waxa uu hadli doonaa filim loogu magacaabo Coronavirus. Waxa uuna soo baxay sanadkii 2011. Filimkani dhab ahaantii aad ayuu ugu yaabadan yahay filimada kale. Tani waa Beth, waxa ay booqatay Hong Kong arrimo ganacsi awgeed. Ganacsigeeda si ay kor ugu sii qaado. Markii gurigeeda imaanaysay saqdi dhexe, waxa ay soo martay Chicago oo ah gurigeeda nasashada. Markii ugu dambeyntii ay soo laabatay, waxay la kulmaysaa walaalkeed ka yar iyo ninkeeda. Kalarki waxa uu ahaa ninkeedii hore wiilkiisa. Beth way bukootay hadda si lama filaan ah hal maalin. Maalintii xigtay March ayaa geeyay isbitaalka halkaasi oo ay ku dhimatay. Dhakhtarkuna wuxuu yiri ma ogaan karo cudurkeeda. Dadku waxay bilaabeen inay ku xanuunsadaan adduunka oo dhan. March waxa uu aaday guriga, waxa uuna arkay kalarka oo sidoo kale dhintay. Waxa uu wacay 911 kaasi oo loo adeegsado booliska. March waxa karantiil ku hayay booliska. Dhammaan dadka dunida waxay bilaabeen inay naftooda ku waayaan si tartiib ah. Wararku waxay daaha ka qaadeen cudur cusub oo in hor yaala. Waxaan aragnaa dhaqaatiirta waaxda CDC ee Mareykanka oo ka hadlaya cudurkan. Tani waa dhakhtarada Erin waxay booqanaysaa magaalo ay rabto inay ka joojiso caabuqani. Waxay ku gaartay magaaladan dhowr saacadood gudahooda waxayna la kulantay March. Waxay weydiisay sababta booqashada Beth ee Hong Kong. Waxay kaloo weydiisay March maxaad u joogtaa Chicago. March ayaa halkani ku ogaatay in Beth laga yaabo inay soo booqatay si ay ula kulanto saaxiibteedii hore. Dhiigga March waa la tijaabiyay laakiin wax caabuq ah lagama ogaanin. Sababtoo ah waxa uu ahaa habka difaaca ugu xooggan. Hadda March ayaa lagu soo celiyay guriga. Xaaska labaad ee March waxay ahayd Beth. March waxa uu lahaa gabar 16 jir ah oo lagu magacaabo Jory oo ka timid xaaskiisii koowaad. Waxay u timid inay aabaheed kula kulanto isbitaalka. March waxa uu ka walaacsan yahay in booqashadeeda aanan qorshaysnayn ee magaaladan ay ku keeni doonto in ay caabuq qaado gabadhiisa. Markaa guriga buu u guuray oo inantiisii kaxaystay. Si lama filaan ah fayraska wuxuu ku faafay Mareykanka oo dhan. Waxa ay wajahayaan caabuq xumada ka dhalan karta. Dadka amniga dalka ayaa booqda si ay ula kulmaan Elaine. Waxay xanuunkan u qaateen sidii hub oo kala dhammaan reer Mareykan. kaas oo si bareer ah loo sii daayay si loola beegsado wadamada horumaray. Waxaana ku lug leh urur kasta oo argagixiso caalami ah. Dhanka kale Dr. Erin waxay u safartay Hong Kong si ay u ogaato goobta booqashada ee Beth iyo sida uu fayraskan ugu faafay iyada. Baaritaanka waxaa lagu cadeeyay in fayraskani uu ka samaysan yahay hilibka doofaar iyo fiidmeerta. Iyo inta ay dadku baranayaan fayraskani si ay u sameeyaan tallaal wax horumar ah lama sameyn. Sababtoo ah unug kasta wuu baaba'aa oo lagu daro 8 milyan oo qof ayaa weli uu ku dhacay fayraskan. Hal qof oo ka mid ah 12 ka mid ah ayaa halis ugu jirta inuu cudurkani qaado. Fursadda badbaadadooda waxay ahayd kaliya 25% ilaa 30%. Dawladda waxay qaadaysaa go'aan ay ku joojinayso koritaanka caabuqa. Magaalooyinka cudurkani uu ku soo ritay waxay geliyeen karantiil si fiican. Waxay la micno tahay ma jiro qof ka bixi kara magaaladan. Maalintii 21aad Alice waxa ay helaysaa boostada CDC ee fayraska MEF asalkiisu yahay Afrika waana ka dilaa badan yahay fayraska HIV. Cilmi baaristooda ayaa socota waxayna sameynayaan muunado kala duwan oo talaal ah oo waxay ku codsanayaan aabiska laakiin ma helin guul. Laguma arag qof bini'aadan ah oo jooga garoomada diyaaradaha, iskuulada, kulliyadaha, xafiisyada laakiin ay ku go'doonsan yihiin guryahooda iyagoo dareemaya cabsi. Ugu dambeyntii dhaqaatiirta shaybaarka CDC waxay helayaan guul maalintii 29aad. Weli ma jirin wax tijaabo ah oo lagu sameeyay bini'aadamka. Tani waxay ahayd geedi socod dheer oo ay ku jiraan ogolaanshaha iyo heshiiska dadka cudurka qaba. Marka dhakhtarada Elias waxay ka fikiraysaa hanaan khatar ah oo ay iyaduna ku waayi karto nolosheeda. Marka hore waxay isku duraysaa muunada talaalka nafteeda. Waxay booqatay aabaheed oo cudurka qaba oo ay kula hadashay weji aan la garan karin muddo dheer. Dhakhtarada Elias kuma qaadin xitaa 2 ama 3 maalmood gudahood. Waxay la macno tahay tijaabadii ay nafteeda ku sameysay waa lagu guuleystay. Halkan waxaa la ogeysiinayaa hay'adda WHO iyo ururada kale in aan si guul leh u helnay talaalka. Waxaana warkani lagu shaaciyay heer caalami. Soo saarista talaalka waxay qaadataa waqti badan sababtoo ah tirada dadka awgood. Iskan ayaa sababay in dawladda Mareykanku ay samaysato nidaamka bakhtiyaa nasiibka. Talashadiisa ayaa ku dhex muuqatay. Isaga ayaa noqon doona qofka talaalka qaata. Bakhtiyaa nasiibka soo socda wuxuu soo bixi doonaa 3 bilood kadib. Dadka waxaa loo talaalaa si dhexdhexaad ah. Waxay la yimaadaan shaqo caadi ah oo ay u tagaan shaqooyinkooda. Gabagabadii sidee buu fayrasku u guuleystay?